horta waa deeqa afro oo saxa sheekan idiga sheekeynaya dhacday de qofka horta bini aadanka ah markasta waxbaa ku dhici kara mogtaha aniga horta gacanta midigtahaan ka jabay baaskiil baa ila dhacay deetana waxaa dhacday hooyaday baa intii guri igu xirtay bineef geela ii qashay neefkii geela ahaa ilaa hadda waa la sheegaa meel uu maray aniga unbuu igu tegay ma fahanteen hadda ciyaar ma aha xitaa waxaa la ii diiday inaan banaan u baxo 6 bilood baan guri ku jiray hadda cunada maxaa la yidhi cunadu waa buurantaha meesha gashana waa buurasaa markaa saas horta isbedelkaad aragtaan saasaa dhacday hadda laakiin ilaa shalay waxba ma cunin wallaahi hadda ma rabo xitaa inaan cuno waxaa la yidhi quraac ma lagu keena hoteelka waa diiday idinkaa ka mas-uula wixii halkaa ka soo baxaa anigu cuntadii waa iska joojiyey neef geelaa la ii qalay waan jabay jabitaankiibaa gacanun baan ka jabay alxamdulilah gacanteydina hadda maasha allah tabaaraka allah wataa ku xaragoonayo horta isbedelkaa ujeedaan waa kaa waana in salaamaya wadna iga qosliseen dacaayadaha iyo waxaad la wareegeysaan saaxiibo joojiya waxaa la yidhi cuna buuran meeshii gashana buuran horaa loo sheegay anigu markaan hadda hurdada ka kacay baan arkay waxa meesha ka socda dee waalida joojiya yaa anigu mideeda kale ilaah baa igu ogo 30 wallaahi wax yar baa ii dheer marka dee qofkii aaminayo qofkii kaleba asaga u taalaa waana wax qurux badan qofku inuu qof nasiib laa weynaada ilaahay waxaan ka baryay inaan dhowr boqol sano gaaro anigu dhimashada waaba necbahay mideeda kale waxaan sheegay reelaas caanad waxaan leeyahay alla gobolka sool baan seexday habeenkii ugu horeysaan seexday gobolka sool islaanta ayaa waay ما فرح مركينو تجي هلاس عربة deeqa afro waay ها oo walaalo waayeen noqotay waa duqowday waxaan laakiin sheeko keenta walaalo waxay waxaan saabay ewer ما عرفت أو محمد هذا معي ما حدا جواني محيوان تبلد بروف وحيوان سكني حبطة markay hadlayso saar markay hadlayso saar markay mikrofoon ku hadlayso saar sawir armay laabo taleefayay ma ku jiray fikram urni Soomaalida laga amahinayo maama deeqa afro way meed garaaceen xasiib qoran bi ku sameeyeen haddaba maamadu waxay idin soo jawaabtay igu tiri neef dhan baa igu fakaday 6 bilood baa guriga lagu hayay isbedelku halka weeyaan ma fahamtay ma garatay marka Soomaaliya inaan meed garaaca ka tahay islaanta way idin sidee wax suuq qaran baa ku sameeysan oo qof kastaaba fikradiisu magaranaysa ka dhiibtay waxay idin soo jawaabtay waxay igu tiri xasuuqayga daayay neef dhan baa igu fakaday oo liqay magaranaysa oo guri dhan baa lagu hayay ma garatay marka isbedelka ugu weyn waa halkaas teega daayay bidin leedahay inaad yaa qasal cali weydii sidee islaanta neef dhan baa ku hakaday oo isbedelku halkaas uu ka yimi hadii ilaahay bidamkiisa leeyahay moodo magaranaysa kuwan guri ka talaabsanayn before and after sanad ku soo qabanaysa ka daayay islaanta sharaf ma leeyihiin weydii sidee reereen ka daayay islaanta mid garaac waxay idin soo jaabtay adna maamo de marka hore waan arkaynay waxaan u malaynayaa markii kaamirada lagu hayay leer kan daarnayn marka adiguna xaal qaadan ku leenay ay xaal qaadan ku leenay maamo wax ku oran karmayna xaaliyay waxaan la yaabanahay oo fajac igu noqotay gabadhii quruxda badneed oo deeqa afro la dhahay gabadhii geed hadaan dhinta geedta lii saaray dhayse bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kugu diin hadii la arooso gabdhaha Soomaaliyeed ay digniyo ay idin noqoto deeqa afro waxa waay waxaan la kaseennay guursatay duurka la gashay jismi ahaan iyo dhagar ahaan iyo quruxdeedii iyo yaraanteedii dad ay ka daawaweena la qabaa joogo oo aan wali isbedelin marka waxaan la kaseennay hadii la guursado gabdhaha Soomaaliyeed aan u hayaa gabar Soomaaliyeed meel walba oo joogto oo shisheeye ay guursanayso iyo waxaan la kaseenin saas la u dambayso waa samaad guure dhagartay ka guure quruxday ka guure dhiigii asliga ah oo Soomaalida oo la yaqaaniyay ka guure garabkiina Allah gala naagta nin dadoo guursato saas la u dambayso assalaamu calaykum Soomaaliya